نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. waxaynu ku soo jirnay tafsiirkii juska 29aad waxaanaynu caawa ka bilaabaynaa suuratu lmacaarij oo suuradda 7aad xagga tartiibta qur-aanka aayaadkeyguna waa 44 waxaana weeyi suuratun makiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن
أنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع سورة المعارج إلى صدح مقعب علماء الشيغان سورة الواقع هي سورة المعارج هي سورة سألة waxay suuradani warkeega ku bilaabaysaa habaar ama waa su'aal ay isweydiiyeen mushrikiintii qaar ka mid ahaa kuwaasi oo ku doonaya cadaab dhacaya waxay suuraddu ka warramaysaa sida su-aasha ay isweydiiyeen looga jawaabayo waxay ka warramaysaa suuraddu maqtac ama mashhad ka mida mashaahidda qiyaamaha waxay ka warramaysaa insaankan Allah abuuray subxaanahu wa tacaala iyo sida uu kala yahay waxay ka warramaysaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadiyo iyo tilmaamaha intay adduunka ku nool yihiin ay ku tilmaaman yihiin waxay qayb inaga tusinaysaa dhaqankii foosha xumaa ee mushrikiintu nebiga calayhi salaatu wasalaam ay kula dhaqmi jireen waxaana warkeega ku koobaysaa isla maalinkii la isweydiinayey ee ay nimankani baryayeen xaqiiqadiisa iyo sida iyagu ay noqon doonaan suuraddu waxaan idhi waa suura makiya waxaanad mar walba xasuusnaataan suuradaha makiga ah waxyaabaha ay daweynayaan waxaa kow ka ah albacthu waannushuur caqiidatu albacthi waannushuur caqiidada ku aadan soo bixista addoommaha allah uu soo bixinayo iyo sidoo kale nebinimada calayhi الsalaatu wasalaam nebiga oo la sugayo iyo towxiidka ilaahay jala jalaaluh waa arkaanta suwarka makiga ah badanaa ay ku taagan yihiin
waxay culimmadu sheegaan suuraddan aayaadka ugu horeeya waxay ku soo degtay bay yidhaahdaan nin la odhan jiray annadr ibn alxaarith iyo cid kasta oo fikirkiisa qabta kuwaasoo ku ducaystay oo waxay yidhaahdeen allaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min alsamaa'i aw i'tinaa bicadaabin aliim suuratu lanfaal baynu ugu tegaynaa biidni illaahi tacaala waxay yidhaahdeen caqli xumadooda ilaahow haddii kan uu nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam uu la yimid uu xaq yahay dhagaxaan samada nagaga soo deji ama cadaab kulul noo keen bay yidhaahdeen waana tamaaman sida dadka qaarkood maanta ay u hadlaan iyaga oo markaa kibir iyo isla weyni ay ka tahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi sa'ala uu weydiistay saa'ilun mid weydiisanaya bicadaabin cadaab ama sa'ala wuxuu u yeedhay saa'ilun mid yeedhanayaa wuxuu u yeedhay bicadaabin cadaab cadaabka oo waaqicin dhacaya lilkaafiriina gaaladana ku dhacaya cadaabkaasoo laysa lahu aanu u sugnaan daaficun wax ka difaaca ama dafcinaya min allaahi xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkaas oo ka ahaaday allaha dilmacaariji darajaadka iyo fadaa'isha u saaxiibka ah tacruju lmalaa'ikatu malaa'igtu waxa ay kortaa iyo waruuxu waa malaku jibriil calayhi assalaam ilayhi ila allahi caza wajal fii yowmin maalin kaana uu ahaaday miqdaaruhu inta lagu qadarayaa haddii la tiriyo 50,000 sana 50,000 oo sano fasbir adkaysa nebi moxamedow sala allahu calayh wasalam sabran adkaysi jamiilan qurux badan innahum kuwan mushrikiintii ihi yarawnahu waxay cadaabka u arkaan baciidan mid fog oo aan dhacayn wanaraahu annaguna waxaanu u aragnaa qariiban mid dhow inuu yahay waxaa weeye kullu maa huwa aatin qariib baa la ydhaahdaa wax kastoo imanaya waa uu kuu dhow yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu intaa inoogaga warramay ducadii ay isweydiiyeen kuwii bacdiga soo bixista iyo hor istaagga ilaahay dafirsanaaye diidanaa taasoo allah subxaanahu wa tacaala uu warkooga ka warramay iyada oo wax ku saabsan qofkii su-aashaa isweydiiyey oo magaciisa aan laynoo sheegin waayo wax faa'iido oo ku jirtaa magaciisa ma jirto laakiin waxan uu keenay shubhaddan uu keenay ayaa la radinayaa sidaa daraaddeed waxaa fiican dadka fikirkaasoo kala qaba inaan magacdooda waxba la wadwadin ee wixii ay keeneen un la celiyo oo la radiyo oo looga jawaabo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sa'ala ay daca weey wuu baryey saa'ilun waa daacin mid baryayaabaa wuxuu baryey bicadaabin cadaab cadaabka oo waaqicin dhacaya cadaabkaasi yuu ku dhacayaa markaa lilkaafiriin ay cala alkaafiriina cadaabka oo gaalada ku dhacaya wey kaasoo laysa lahu aanu u sugnaan daaficun waa cadaab dhacaya oo xaqiiqo ah wax difaacayaana ma laha weeye oo ka difaacaya dadkii allah ugu talagalay cadaabkaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday ilaaha dilmacaariji sarraynta iyo darajaadka u saaxiibkaa iyo masaacidda ay malaa'igtu samada u korto tacruju ay tascadu way kortaa weeyi almalaa'ikatu malaa'igtii way koraan iyo waruuxu waa malaku jibriil calayhi assalaam gooni waxaa loogu sheegay sharafta iyo qiimaha uu leeyahay daraaddeed waxay koraan fii yowmin maalin dhexdeed maalintaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu inta lagu qadaraya
وأمرك إلهي سبحانه وتعالى أي لصوك أي مركاسي أي صوف لنيان وحيد أهدان وحاو أمركاسي كبلاب ميا من أسفل الأرض السابعة دولك تضبط أمد أوجوها سيسا إلى وحجار يا منتهى أمره من فوق السماوات تضبط السماوات أوجس الرئيسة أيو جاريا مركا هذا ملائكته هل كاسي قرآن إلهي أمر كيساني كقرآن يوحو ألا وحي سبحانه وتعالى تعرجوا وي قرآن بو ألا يري الملائكة ملائكة والروح يا ملك جبريل عليه السلام إليه حقيسا وإلى الله حق إلهي سبحانه وتعالى في يوم مال كان وهذا مقداره قدر كيسو 50,000 سنة كنتم كن أو سنة وهذا انت اللي قدري وي وصعود غير الملائكة ملائكة وحان أهين كوريتان كوغا وكنتم كن أو سنة إلا قدروا مالين كاسو الله سبحانه وتعالى أن وتلمامي سدا أي ملائكة أمرك إلهي جل جلاله أي مركز أفليان تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله حق إلهي بيكوران سبحانه وتعالى في يوم مال دحدي مال كان وهذا مقداره قدر كيسو 50,000 سنة كنتم كن أو سنة لو قدري هضبة فاصبر صبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم صبرك وحل هذا حبس النفس على ما تكره نفط أو لغو قبطو لغو حبسو أو لغو هيو وحا أي نعيسو صبرا صبرك أو جميلا قروح بدن صبرك قروح بدن لهنا وحواي متك أرججح إيا أشكتو مخلوق لو أشكتو ذا آنو كجرين بالا هذا الصبر الجميل وأنا كي النبي يعقوب عليه السلام لها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وحال أمري إنه الدلقاته أو أتكيسته dhibaatada kaga imanaysa kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo hor istaagiisa diidan maxaa hadaba nimankan ku kalifay inay diidaan cadaabka Ilaahay jalla jalaaluhu iyo soo bixista adoomaha Allah uu soo bixinayo waa kanoo Allah wuxuu yiri innahum yagu yarawnahu waxay u arkaan cadaabka waxay u arkaan ay dalbayaan ay Ilaahay ka baryayaan baciidan mid fogo aan dhacayn bay u arkaan sidaasay de marka ay i'tiqaadiyeen oo aaminsan yihiin Allah wuxuu wa naraahu waxaan u aragnaa qariiban inuu dhow yahay oo cadaabkaasi waa kii imanaya waqtigu imanayay ayaa laga waramaya marka yawma maalin ayuu cadaabkaasi imanaya takuunu samaa'u samadu ay noqon doonto kalmuhli sidii nuxaas la dhalaaliyay وتكون الجبال بورهنا أي نقن دونان كالعهن سيدي الدقر لم يدبيي ولا يسأل ورسن مايو حميم مدمركا دو حميما مدكلو دو ورسن مايو صاحبنا صاحب ورسن مايو وأرنتو وي أتكانيسا حتى بصوبت أن لسكو ورسرين ما وحوي اسمع ركيان مياه ميا وكانوا ألا وحيري يبصرونهم والله استصيا ددك لكن waxaan la isku wareysanayn waxa ay tahay qof walba arin u gaara ayaa mashquulisay wanaga ku soo qaadanay suuratu abasa likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni tiibay la macna tahay marka wala yas'alu waydiin maayo hamiimun mid qariibihi حميما متكي ودواء قريب كيس أها حالدي سورسن مايو محايا لكل مشغول بحاله مدول بوحكم مشغول سيهي حالدي سيساق أقارك أهيد الله أكبر يبصرونه والله استصيابوا الليل سبحانه وتعالى
dad aan is arkayn maahe waa dad is arkaya laakiin wax alla wax la isku tarayo ayaan jirin. yawaddu wuxuu jeclaysanayaa almujrimu kii dembiilaha ahaa ee maalintaa isagoo dembi xambaarsan rabbigii hor yimid wuxuu jeclaanayaa low yaftadi inuu isaga furto min cadaabi yowmi-idin maalinka cadaabkiisa inuu isaga furto ou isaga furdaamiyo ayuu jeclaanayaa bibaniihi inamadiisa inuu isku furto ou isagu badbaado inamadiisana naar loo taxaabo ayuu jeclaanayaa. wa saaxibatihi islaantiisii iyo wa akhiihi walaalkii wa fasiilatihi iyo qabiilkiisii allatii qabiilkiisii waa qabiilkii tu'wiihi markaa soo dumaysay ee ilaalinaysay dhibaatada ka ilaalinaysay marka ay ku dhacdo. intaasi waa uu sii dhaafsan yahay waman iyo cid fil ardi dhulka ku nool jamiican dhammaantoodba inuu isku furto ayuu jeclaanayaa uma yunjiihi dee hadda ay badbaadiyaan markaa oo taasi ay ku badbaadiyaan. kalaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa kelimatu radcin arrinku sidaas ma ahee innahaa tani ladaa waa naartii lada ahayd weeye huraysay nasaacatan tii siibidda badnayd weeyi lishawaa haragga madaxa iyo markaa dhinacyada qofka waxaan u jeedaa atraafta lugihiisa iyo gacmihiisaba markaa siibaysay walciyaadu billaah ilaah baan ka magan galnay. tadcuu waxay u yeedhaysaa man midkii adbara daba jeediyey oo watawallaa ka jeestay xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wajamaca maalka urursaday adduunka intuu ku nool yahay oo fa awcaa weeleeyey maalkii weel buu u samaystay uu ku urursado markaasaa xaqii lagu lahaana uu diiday. waxaa laga warramay cadaabka dhacaya iyo maalinta uu imanayo sida wax noqonayaan buu alla ka warramay subxaanahu wa tacaala. waa cadaabkaa ninkii gaalka ahaa uu isweydiinayuu lahaa goormuu imanayaa. wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin suuratu lmulki baynu ku soo marnay. waxa weeye hadday kuwaasi sidaa ahaayeen dadkii sidaa qabay adduunka kamay dhammaan maalinba maalinta ka dambaysa ayay sii kordhayaan oo sii badanayaan. haddaba goorma cadaabkaasi imanaya yowma maalin buu imanayaa takuunu samaau samadu ay ahaanayso kalmuhli ay ka nuxaasi lmudaab sidii nuxaas markaa la dhalaaliyey waa siday macnaha u jilcayso. xalayna waa inagii soo marnay xaalad ka mid a xaalaadka samada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay. wainshaqat الsamaau fahiya yowmaidin waahiya watakuunu اljibaalu buuruhuna waxay noqonayaan buu alla yidhi kalcihni sidii dhogor la midabeeyey oo kale waa kasuufi lmasbuuqi alwaanan waa sidii markaa dhogor lagu midabeeyey midabo. waxaana laga warramayaa xagga fudaydka iyo sida ay u burburayso. maalintaasi markay timaado xaaladda qofku muxuu noqonayaa weliba khaasatan qofkii mujrimka ahaa ee dembiilaha ahaa. allah wuxuu yidhi walaa yas'alu weydiin maayo warsan maayo xamiimun mid qariibihi xamiiman qariibkiisii warsan maayo. ma laysma arkayaa maye waa laystusayaaye waxaan laysku wareysanayn waxay tahay linshigaali kullin bixaalihi mid walba xaalkiisa ayuu ku mashquulsan yahay. yubasaruunahum waa lays aragsiinayaa waa laystusayaa markaasaa maxaa dhacaya yawaddu lmujrimu qofkii dembiilaha ahaa wuxuu jeclaanayaa low yaftadii ay an yaftadii inuu isaga furto min cadaabi yowmi-idin
maalinka cadaabkiisa inuu isaga furdaamiyo bibaniihi inamadiisa ayuu jeclaanaya. acazu nnaasi cindahu fi dunya wey, waa dadku ugu jeclaa adduunyada intii lagu noolaa. oo qofku maanta ilmihiisa wuxuu doono u ogolaa, sidii ilmihiisaasi uu nolol ugu noolaan lahaa wuxuu doono isku qaadaa. laakiin berri markay timaado oo dhibaatada uu arko inta ay leeg tahay, wuxuu jeclaysanayaa inamadaasi in naarta la geliyo isaguna uu badbaado. wax u eg arrintaasi ayaa layna yar tusay haddaan wax ku qaadanayno. cudurkii adduunka ka dhacay imikadanba sii jira ee dadka cabsidiisii ay ku sii badanayso, markuu bilowga ahaa waxaa dhacay in la kala yaacay oo odaygu inankiisa salaami waayey, islaamtu odaygeega ay markaa usoo dhawaan weyday. soo ma aha? hadda waa adduunyaa la joogaa, waa adduunyaa la joogaa. dhibtu way iska markaa intaasay ahayd, laakiin waa la kala tegey, waa la kala tegey. ilaah waxay gaadhay in aabbihii dhimashadiisa aanay ubadkiisu ka soo qayb gelin, oo yidhaahdaan waan cabsoonaynaa, cudurkii baa nagu dhaceeye khalaas waanu kusoo ducaynaynaa. ay ku yidhaahdaan dadkii ay ku yidhahdaan saa naga gaadhsiiya, oo sakaraadkiisii aanay ka soo qayb gelin, oo qofka sheedaasun laga eegayey. waa hadda cudurkaa yar eed arkaysaan macnaha ilaahay ku imtixaamay jala jalaaluhu addoomihiisa si loogu edbiyo. ina waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo inoo sheegay aayaadka qur'aanka oo ilaahay noogu caddeeyey subxaanahu wa tacaala in imtixaanada imanaya ay tahay edbin addoommaha la edbinayo iyo in la tusaya qadarka ay leegyihiin. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, allah muxuu yidhi walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun. waxaanu xaqiiqa ahaan ku qabannay cadaab, rabbigoodna iskumay miskiimin, ilaahayna iskuma bihinbihinayaan. waxaa cadaabka iyo imtixaanaadka iyo xanuunada loo keenaa si rabbi la ysugu miskiimiyoo loo noqdo oo uu addoonku u yidhaahdo rabbi waan toobad keenay. haddaba maalintaasi waa maalintaasi qofku dadku ugu jeclaa ee uu ku indhakuulanaya adduunyada uu ka carari doono. waa idinka arkaya maxaa ugu horeeya bibaniih inamadiisii, wa saaxibatihi saaxibadiisii buu alla yidhi subxaanah. macnaha zawjadiisii baa laga wadaa. saaxiibna waxa saaxiib loo yidhaahdaa waa qofka mar walba laasima, qofka ayaa saaxiib la ydhaahdaa. cidda isugu laasimid badan waa odayga iyo islaantiisa, waa la kala roorayaa maalinta. wa saaxibatihi wa akhiihi. haddaba tani maanta ma aha rooritaankii lasoo sheegay suuratu cabasa, yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi. soo ma ahay taas? waa la kala roorayahay. tani waa maxay? wuxuu jeclaanayaa qofkii mujrimka ahaa in waxaasoo dhan ba naar inta la geliyo isaguu badbaado. halkay gaadhay weeye markaa dhibaatadu. intaa in ka yar baana lagu badbaadayaaba, oo halkee laga shaqaysanaya adduunka guudkiisa, waana inoo soo socotaa. inta lagu badbaadayo way soo socotaa. allah wuxuu uhi markaa taasuu jeclaan doonaa qofkii mujrimkaa, ilaahay nagama dhiga mujrimiinta. wa saaxibatihi wa akhiihi, waa saaxibadii iyo walaalkii, wa fasiilatihi alatii tuwiihi, waa qabiilkiisii uu laabta u garaacayay ee iyaduna markaa difaacaysay. waa taa ee adduunyada markaa uu dadka ugu faanay uu ku lahaana idinka laandheeraysan. maalintaa wuxuu jeclaanayaa waxaa la wixii in naarta loo taxaabo. intaa wuuba haddii in ka badan uu sii heli lahaa baleegata iyo waman cid fil ardi dhulka ku nool jamiican dhammaantoodba in naarta inta la geliyo isagu uu badbaado ayuu jeclaanayaa. uma yunjii ay arrintaasi dee markaa badbaadiso. laakiin dee kalaa buu alla yidhi, arrintu sidaas noqon mayso. qof walba isagoo keligii oo wax alla wuxuu haysta aanay jirin ayuu rabbigii hor imanayaa. inahaa tani lada, naartii lada weeye. lada waa ismun min asmaa'i naar, waa magac ka mid a magacyada naarta, waa tii huraysa weeye. waa inagii suuratu leyl ku soo marnay faandartukum naaran taladaa, ay tataladaa, naar huraysa ayaan idinka digayaa. naartani maxay samaysaa? nazaacatan tii siibta weeyi, lishawaa haragga ayay siibaysaa. ilaahu naga badbaadi. tadcuu, cid kasta naartani uma yeedhee, tadcuu waxay u yeedhaysaa man midka adbara, daacada ilaahay ka daba jeediya. halkaasaa aadaankii ugu dhacaya uu sii socdaa isaguna.
سيدة بجيدنا وتولى وكج يستحق إلهي سبحانه وتعالى وجمع أريي الدنيا دي وفاو عوال السمايستي مركاسو حقي لقولها أنا الديدي ولا حول ولا قوة إلا بالله وانا إنسان كحالتي سمار ما أنت تضفر ستبدن كوغو تاسي كورة السفيسين إلا من رحم ربي عدوا إلهي ونحريستي موياني وانا عدا إنوصو صعوته وصورده إنوغو والرميسو قال الله تعالى له وحجري إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إنسان كبا إلهي كور بحنايا إساقا إنسان كأبوري الله سبحانه وتعالى الله وحري إن الإنسان إنسانك خلق والله أبوري هلوعا حالو يهكي سنكم الروناء وسنكم الروني oo muxuu sameeyaa markaa insaankan markaa waa insaankii gaalka ahaa idaa masahu markuu taabto asharu shar markuu taabto dhibaata markay ku dhacdo xanuun saboolnimo shaqo la'aan jazuucan mid argagax badan buu noqdaa wa idaa masahu alkhayru khayr hadduu taabtana waa hadduu taabto manuucan mid diidis badan oo khayrka mancin badan oo aanay waxba ka iman xaggiisa ayuu noqdaa waa sina kuma roone markaa laakiin qofka mu'minkii uu ka duwan yaho qofka ilaahay iyo daarta aakhira si dhaba u rumaysani sidan ma aha nebigaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min qofka mu'minka arrinkiisa cajab iyo layaab ayaa ku jira إن أمره كله له خير أرنكي صدنا خير بوياه مركز محور رسولك يقول هيه إذا مسه إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هدي دبعته كل عضوات كيسنا يا وصبر يا خير بيوتها هدي أي برواقي يا مركزي خير والله كل مرة شكر وكما هدنق يا فكان خيرا له خير بيوتها وحنا حديث كجرة وليس ذلك إلا للمؤمن أرنت قفك مؤمن كهم بإسكال عد كلام لها وقفك إلهي سدب ورميسن أجنا وحيا دونك كدعية إنه كدعه بحكمة الله عز وجل هدي حنون مركا وطابته وقت كيسانيا لأنه وحو إسصاهر دقيا مركيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هدي خير يوناك الله أفرنا سبحانه وتعالى ومهدنقيا محايا لوحو إسا الصهر دقيا لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لكن إنسانك الله ككفري دارت آخرنا جدول كأنا يقول سنكم الرونوي هذا دباتا كل علي حنونا يوحى سميا ومد أرقق بدن أدمو دمركا إن موت كيبا إمك لدول ساري haddii uu barwaaqo iyo raaxo galana wuxuu leeyahay ordaya shaqaysta waa la shaqaystaaye in wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo uga mahad celiyo habeenkii xalay ahaayoo ka tegay wey qaala allahu tacala ilaahay wuxuu uhi ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray buu alla yidhi haluucan xaalo uu yahay kiisuna kuma roona ah idaa masahu markuu taabto asharu shar markuu taabto jazuucan waa kii argagax badan waidaa masahu alkhayru khayrku hadduu taabtana manuucan waa kii mancin badan weeyi markaa dadkii badankoodu weysani gaalku waa awala waa ka ugu horeeya wabiqadri maa yanqusu iimaanuka yakuunu jazacuka wa mancuka lilkhayr hadba inta iimaankaagii uu naaqusmana qaybtanaad soo galaysaa weey sida loo kala iimaan badan yahay ayaa loo kala argagax yar yahay loo kala mancin yar yahay khayrka oo qofka allah subxaanahu wa tacaala iimaan xooggan uu siiyey dhibaato kastoo dhacda waa ku adkaysanaya khayr kastoo alla u keenana ilaahay buu uga mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala yaa laga soo reebay markaa ila almusalliin markaa dad yar weeye dadkan ila almusalliin kuwa tukada mooyaane kuwaasi ma aha dadka laga soo waramee kuwii baa hadda la sii sifaynayaa
waxa ugu horeeya lagu sifeeyay ku suntan yihiin waa maxay salaad weeyaan qof aan salaad tukan ka faraxalo khayr ma leh kan salaad tukan in kasta ha ku sheegta inuu caaqil yahay ama uu wax garad yahay khayr ma leh waayo halkan maxaa laga soo reebay dadkii sina kuma roonayaasha ah maxaa laga soo reebay almusalluun soma idan alladina la yusalluun xaalkoogu waa maxay waa maca haulaa idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan waanay soo baxday oo dadkaasi waqtiyada dhibaatadu adkaato ayaa toos ay u soo baxaan inta hore way isqarinayaan oo madaxay ciidda kula jiraan mar alla markay dhibaato timaado ayuu soo baxayaa marka imisa ku dhawaaqaysay oo markii imtixaankan cudurkani uu yimid ku dhawaaqaysay in aan la tukanba in markaa masaajidda la xidho oo qofku nin walba xaaladiisa uu la baxsado qaar baa waxay lahaayeenba masaajiddu inay dhakhtar noqdaan baa fiicnay ya inta masaajid hargeysa ka dhim hadday dhakhtaray noo noqon lahaayeen ayaynu badbaadi lahayn bay qaar sidaa kusoo qorayeen barahooga markaa bulshada uu soo baxay iminkuu soo baxay imtixaankii baa soo saaray markaa inta hore lama garanay haddaba ila almusalliin kuwa tukada uun baa badbaadaya weeyaan kuwaasun baan ahayn dadka sifadaa xun iska leh waayo haddaba kuwani waa kuwan markaa salaadu ka kala dhacdaa ee yidhaahda way iga kala dhacday ya dad waxaa tukada waxaa jira tukado oo yidhaahda salaadii waa iga kala dhacday war hebel maxaa dhaco toddobaadkan salaadii baa iga kala dhacday oo maxaa dhaco maryaha iga nijaasa nin weyn oo saale ka hor maryo nijaasa maxaa kugu raray marka salaadii baa iga kala dhacday soo ma aragtid ma kuwaasaa maya aladiina waa kuwa hum iyagu calaa salaatihim salaadooda daa'imuuna waa maxay waa daa'imaya weligoodba tukanaya wey hadday xanuunsanayaan iyo hadday caafimaad qabaan hadday safar ku jiraan iyo hadday xaadir yihiin intaba waa kuwa tukanaya laakiin de waad ogtihiinoo diinteennu waa fudayd qofkii xanuunsanayana sidii u fudayd baa u tukan lagu yidhi haddii aad sarajoog ku tukan weydo maxaad ku tukanaysaa ya fadhi baad ku tukan fadhiga haddaad ku tukan weydana haddaad jiif ku tukan weydana si alla sidii kugu suurtagala ayaad ku tukanaysaa marka bal u fiirso taasaa dadka qaarkood lagu kari laayahay aladiina kuwa way hum iyagu calaa salaatihim salaadooda daa'imuuna daa'imaya way tukashadeeda ee aan kala googoynayn qaybtaasi waa xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan haddaba laga warramayo ma dad xaqii khalqigu ku lahaa baal maraybaa miyaanay khalqiga u naxariisan maya waa u naxariistaanoo alle wuxuu yidhi waaladiina kuwa weeyi fii amwaalihim maalalkooda uu ku sugan yahay xaqun xaqa oo macluumun la yaqaano oo yaa iska leh lisaa'ili kii markaa wax weydiinayay dadkeeda warsanayay walmaxruumi iyo kii aan waxba dadka weydiisanayn laakiin dee dhibaatada iyo faqrigu ay u haystay bal hadda u fiirso waxay iska hagaajeen marka koobaad xidhiidhkay la lahaayeen khaaliqooga oo cibaado uu insaan sameeyo cibaadadii ugu qaalisnayd ayay samaynayaan oy daa'imayaan xaggii khalqiga iyo makhluuqaadkii ay la noolaayeen khaasatan bani aadamkii ay dhex noolaayeenna xaqii maalkooga ay ku lahaayeen bay siinayaan bal u fiirso dadkaasi sida ay u badbaadeen waaladiina kuwa waayu yusadiquuna rumaysan biyowmi ddiini maalinta abaalmarintay rumaysan yihiin sidaa daraaddeed camalkii ay ku badbaadi lahaayeen bay shaqaysanayaan iyagoo haddaba ilaahayna caabudaya makhluuqaadkiina u naxariisanaya maalinta abaalmarintana rumaysan ma waxa ay isku qoreen inay noqonayaan kuwa jannada xagga hore ka galaya maya waaladiina kuwa weeyi hum iyagu min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkiisa mushfiquuna ka cabsoonaya haddana nimankani cabsi baa markaa ayaa u raacsan inta ilaahay bay haddana ka baqanayaan subxaana wa tacaala maxaa yeelay ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisu hayru ma'muunin mid laga aamin yahay keyrkii weeyi walidaalika iskuma halaynayaan cibaadada yaray samaynayaane haddana cabsi baa ku jirta qalbigooga taasina waxay keenaysaa inay camalkii khayrka ahaa sii laba jibbaaraan ilaahayna weydiistaan inuu khayrka ku sugo waaladiina kuwa weeyi xaggii dhowrsoonnida iyo cifada eega macnaha dadkan aan ka warramayna waa dad dhammaystiran weeye dhinac walba
هديتها التعامل مع الله، هديتها التعامل مع الخلق، هديتها التعامل مع النفس. وكوا دورسون والذين كوا يهم يجو لفروجهم حبنه ترنك حافظون إلى لنيا وحارانا كإلى لنيا إلا على أزواجهم لما نهوا جمو يعني لما نهي دا إلهي بوحل عليه سبحانه وتعالى أو ما ملكت أما وحي أي ملك ذي أيمانهم يدود وأضامه إيماج هذا ما بالجرام به فإنهم يجوا غير ملومين كوال عنانا يو غير كودوي هذا سلا سميانو دي قفكو إسلانتي سو حراشة أهيد إساقا وحويان أجري وبكهليا أما هدو الزنا يوحكا لا آدو تاسي وحي كان يسا إنو كبحو داد كان بدباديا إنو وحان هذا التلمامينا ودادكي السنة كمرونياش أها دادكي كدواناي بدبادي من صفاتكو يا كشاكينينا هذا بواددك فرجيغوغا حبنوغا ترنكا إلى ليوي فمن ابتغى قفك الطلبة وراء ذلك انت الله سو شيغاي وحاسسكي iyo cidi alla u xalaaleeyay cida furuujtooda iyo xubnahoogi taranka gay la aada fa ulaayka kuwaas humul aaduna iyaga uun ba xadgudbu alla yiri subhanahu wa ta'ala wa kamarka zinada iyo ku dhacaya haduu marka dhalinyarta ay yihiina gacmahooga isticmaalay way balaayadu ku dhacday marka kuwaas kuma jiraan maxay sina kuma roonayaasha kuwa ka soo haray kuma jiraan ee waxa noqonayaan kuwii laga sheekeynayay ahaa inal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manu'a hada lam yahfaz farja khalas انما نكح يده وتزوجها ولا حول ولا قوه الا بالله الا على ازواجهم او ما ملكت بس فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك انت لغا سو شيكيي عده فرجديسي لا آده كاسف أولئك هم العادون بوالن كواس واحد قدبي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه قفك حدود إلهي كطلابنا نفتي سوى ظلمي ويلك دليرتا أنا دي وحا لغو ديريي ورسول كان محمد عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بي كلان كان دليرتا قفك باءة إيو تكاليفتا حياة مركاسي لمانها كري هيسك قرصدو هدو قرصد محيهايا فإنه أغض للبصر كاسا إنده سأقول الله بدن وأحسن للفرج حبن كيسا ترن كان أقول إلى علم بدن قفك إنت كري ويمياه فعليه بالصوم مركا دليرتو لقربا إني صومان سيقر رئيستان إني فروجتو دميلك للا آذان وبلايا باسكو صابح مركي قرصدانو أو أحبائي سور رقوم أيان صدقار كود كود عضي وميلها علماء أي ويديان محاسمة يا إلى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صفات كما يدام هذا مايا والذين كويهم يقول أماناتهم أمانات كي لو ديبتي وعهدهم يبلن كي قالين راعون إلى لنا أمانة وحي نقول كو أمانة ألا كو أمانة يستي محاوبه الرأي عبادة يا أمانة خلق كو ديبتين حتى سرته وقف كودي بتوا أمانه لقارب إناد إلى الصد حفظه وأنا تكور من عدي كوجو أمانة ستي والذين كويهم يقول أماناتهم أمانات كوجا يوعهدهم بل مضى أي قلان راعون إلى لنيا والذين كويهم يقول بشهاداتهم مرقة يا مرخاتك أي قلان قائمون أتاجا أو سدي صحراء أهيد أجدنيا أو عن خياء عن مركا شهادتي يا مرقة يهين عن قرنين maxaa lagu bilaabay sifaadka dadkan salaada soomaha hadana salaadii baa lagu guulaanaday waxa lagu dareensiinayaa horeysiya dambeysaba salaadu waa mid amalkaaga wanaagsan ku maamulaysa inna salata tanha عن الفحشاء والمنكر والذين كويهم يجو على صلاتهم صلاة دودا كركيدا يحافظون إلى لنيا تيهور محيا هاي دائمون دائما يصومها تنا إلى لين محيا إلى لنيان وقت كي صلاة أركان كي صلاة خشوع دي صلاة سنن كي صلاة هيئات كي صلاة أي إلى لنيان اسكما فور صنيان صلاة وحي تكنيان أي رب قد سبحانه وتعالى أي وحكا قربان أو وكبت بعدين يا ربنا سبحانه وتعالى
haddaba intii laga soo sheekeeyey ayaa ilaahay inoo sheegay abaalkooga wuxuu uhi ulaa'ika kuwaasi fii jannaatin jannooyin ayaa dhexdeeda mukramuuna lagu karaamayn yaa karaamaynaya allahu alwaaxidu dayaan jannadaasi siday u ekayd iyo waxa yaalay waa innagii xalay ka sheekaynayn فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في جنات مكرمون بألي سمارة السوق قرآن كسكولا الصعودة أولئك كواسي المذكورون المتصفون بتلك الصفات صفات كاسي كتل مامن في جنات جنوين دحديد با مكرمون لغو كرامين يا اللهم اجعلنا منهم إله كوا نغدق إله كوا معوغ نغدق فما للذين كفروا قبلك مهطعين وحلصا نقضين لغا شاكيو أخلاق دي الدرنيد مشركين النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام أي كل الدقميين iyagoo intaan waxyiga loo soo dhiibin u yaqaanay as-saadiqu al-amiin kii runta sheegayee amiinka ahaa agtoodana qiimo iyo sharaf uu ku lahaa laakiin markuu yidhi ilaah keligii caabuda hawadiinana ka dheeraada sanab aan waxba idiin taraynaha caabuda ha caabudina ayay ku yidhaahdeen waxaad la timid waa maxay asaatiiru alawaliin adiguna maxaa tahay kadaab baa tahay majnuun baa tahay mucallamun majnuun يعني wax kasta oo qof lagu caayo wixii ugu darnaabay rasuulka ku caayeen intii horena amaantiisa dawaad garanaysaa haddaba kuwii alla ka warramo wuxuu yidhi famaa maxay baa liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobo qibalaka xaggaaga muhticiina ay ugu soo degdegayaan haddaba soo degdega ay soo degdegayaan ma aha inay hanuun rabaan canilyamiini midigta xagga midigta وعن الشمال إيا بدح هذا حقيدا عزينا حالائهم كوي كوحة كوحة أفردية ما حي سمينا يعني مركا ويكون جاسيس يا النبي عليه الصلاة والسلام وحاكم إذا هذا اللذو دا إنا مركا أركان مسلمين تي نبي الرمية عليه الصلاة والسلام ويجا مركي هراء أكتودا ضد عفاك أها إنا يدهدان كوا ساطي جنة قلان أنا قابو قهرين وديل ديل كي يكون ديل ديليين إلهينا سبحانه وتعالى سدو النبي إنه ينوشك عليه الصلاة والسلام قفك كما قيمة يو سور كيس يجد كيس يهنتديسه وحقفك لغو قيمة يا محيطهاي الله كعبس يا إيمانك إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم صباحا إلهي صبرك يا ما يصادو اكتهاي الله ما يا سبحانه وتعالى انت هانتي haysato Allah ma eegayo laakiin qalbigaaga inteeba iimaan ku jirto way dadka ka ugu daciifsan noqo xagga markaas jirka xagga maalkana ka ugu saboolsan noqo ee boga dhulka ku haya marba hadii qalbiga iimaan kugu jiro ilaahay agtiisa qiimaad ku leedahay adduunka inta yar kooban ee ku nooshahay xasiloonida iyo waxa weey waxa aad ka dareemayso qalbigaaga ka hantida haysanay Allah ka kufriyo ma dareemayo سادرادي ويدك أركيا سقى وحول بهايستا أيوب برتا إسكت توجنيا أما فوقي سالك أقول درب إسكت سطوريا أما أنتوا ورقة قرا أيوليا هي نلاش يوم فاهم واي وعكستنا وهايستا القاسو السود الدل يا مركا كان دا مركا فقير كعبان يسأل لكن الله كحدا حوليا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور إلهي بكو حدا سبحانه وتعالى مر والبعض هذا بقى فما محبا للذين كيوصوا ذلك فروا كفريي قبلك حقا حالا أي مهطعين أسو دقدقيان أما أي كروريان عن اليمين مدكتا يو عن الشمال بدحدنا عزين أيهن كوي كوحا كوحا يا جماعات كاغا فرديا أي يطمعوا موحو ضمعيا كل امرئ متكستبه إيقظ ما هي يعني عدكستي وهذا ودد دي أنا هين ومنهم يجا كميدهم واحد ضمعيان أن يدخل إلا جليو جنة نعيم جنة دي مركا لقول راحي سنة لقول برواقوبة يما إن لجلية أيو قدرين يا إسقى
uclu hobal tahaya oo sanam aan waxba tarin caabudaya haddana muxuu rajaynayaa in janno la geliyo tamaaman sidaa ay dadka ahlu baatilka imikaba ay rumaysan yihiin ayatmacu oo wuxuu quudaraynayaa uu rajaynayaa kullu mri'in shaksi kastoo minhum kuwan ka mid ihi gaalada an yudkhala in la geliyo jannata naciimin waxa weeye jannadii raaxada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala awliyadiisa u diyaariyey kalaa waa kelimatu radcin wazajr kalaa ha ka hadhee arrinku sidaas ma ahee innaa anagu khalaqnaahum waxaanu ka abuurnay mimaa wixii yaclamuuna ay garanayaan manidii daciifka ahayd ee taagta darnayd ayaanu ka abuurnay waa nimankii hadda sanka taagayey ee kibrayey ayaa waxaa la dareensiinayaa meeshay horta ka soo jeedaan innaa khalaqnaahum waxaanu ka abuurnay mimaa kii yaclamuuna ay garanayaan taagdarridiisa iyo dacfigiisa waxa ay garanayaan baanu ka abuurnay falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala birabbi lmashaariqi cadeed ka soo baxyada rabbigood baan ku dhaaranayaa waalmaqaaribi iyo meelaha cadceeddu ay ka dhacdo innaa anagu laqaadiruun kuwii kana ayaan nahay calaa an nubadila inaanu ku bedelno khayran minhum kuwa ka khayr badan iyaga wamaa naxnu anagu ma nihin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala bimasbuuqiina kuwa laga baxsanayo ma nihin fadarhum isaga tag nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam yakhuuduu ha iska tiim badaan oo ha iska dhex galaan baatilkooga wayalcabuu ha iska ciyaaraane falyakhuuduu walyalcabuu xataa yulaaquu ilaa ay la kulmayaan yowmahum maalinkooga alladii maalinka yuucaduuna loo yaboohayo yowma maalin weeye yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaasi qubuuraha siraacan xaala ay yihiin kuwii markaa degdegaya oo u degdegaya maxay codku halkii uu uga dhawaaqay kaannahum waxaad moodaa ilaa nusubin yool xaggii yuufiduuna kuwii markaa u cararaya ayaad moodaa waa yool nusubku waa meel loo taagay oo halkaa kaalaya lagu yidhi kuwii u rooraya ayaad moodaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala khaashicatan xaalo ay tahay tii ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahoogu uu khushuucsan yahay tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinimo ayaa daboolayso dulli baa wejiga ka saaran oo lagu garanaya inay yihiin dadkii ahlu naarka ahaa daalika kaasi alyowmu maalinkii weeyi alladii maalinkii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo yabooho oo ay dafirayeen ama ay u yeedhan jireenba qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa birabbi almashaariqi waalmaqaaribi almashaariq waa jamcu mashriq waa meelaha cadceeddu ay ka soo baxdo waalmaqaaribi waa cadeeddu meelaha ay ka dhacdo ayaan ku dhaaranayaaye macnaha mashriq iyo maqrib buu alla ku dhaartay ilaahay baana iskaloo abuuray innaa anagu laqaadiruun kuwii kara ayaan nahay inaanu kuwan halaagno oo waxa alla uu karaa calaa an nubadila inaanu ku bedelno khayran kuwa ka khayr badan minhum iyaga wamaa naxnu anagu ma nihin buu alla yidhi bimasbuuqiina kuwa la cajzi gelinayo ama markaa laga dheeraynayo ma nihin fadarhum ka teg nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam waa ka teg wey oo iska daa yakhuuduu ha iska dhex galaan ha tiimbadaan wayalcabuu ha iska ciyaaraan waa taa dadka qaarkood maanta ay ku jiraan yalcab wayakul wayashrab wayakhuud fii ayi shay yuriid sidaasaanu moodayaa inay xaqiiqadu tahay falyalcab walyakhud maa yashaa xataa yulaaquu ilaa ay la kulmayaan yowmahum maalinkooda alladii maalinka yuucaduuna loo yaboohayo yowma maalin weeyi yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaasi qubuuraha xaggooga ay ka soo baxayaan siraacan xaala ay yihiin kuwii u degdegaya halkii lagu xashrinayay dadka kaannahum waxaad moodaa ilaa nusubin yool xaggii yuufiduuna inay u roorayaanoo ay u socdaan ayaad moodaa buu alla yidhi khaashicatan waa tii ay khushuucsan tahay markay degdegayaan xaaladoodii baa laga warramayaa khaashicatan xaalo ay tahay tii ay khushuucsan tahay absaaruhum aragyadoodu ay khushuucsan tahay oo macnaha ay markaa dullaysan tahay tarhaquhum waxaa daboolaya waa taqshaahume dillatun dullanimo ayaa daboolaysa daalika kaasi alyowmu maalinkii weeyi
alladii maalinkii yuucaduun loo yaboohayay in la cadaabi doono waana maalintii qiyaamaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala maalintaa kuwii badbaada allah inaga dhigo kuwa jannada lagu karaameynaya allah laynaga dhigo kuwa jannada lagu karaameynaya allah inaga dhigo camalka janno lagu galo oo meesha lagu sheegay kuwii qabtana allah inaga dhigo subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin